anigu kelimadaas ayaan wax yar raacsiinayaa oo ku saabsan dhiigga muslimka daadintiisa cuquubaadka ka dhalanaya. Allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah u naadiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullah waltandur nafsun maa qaddamat ligad wattaqullah ina allaha khabiirun bima tacmaluun. ilaahay mu'miniinta wuxuu amray in ay allah ka baqaan, naf walbaana ay ka fiirsato camalka ay maanta samaynaydo oo berri qiyaame ay u hormarinaydo. qofka muuminkaa waxa uu samaynayo waxa ka dhalana waa inuu fiiriyaa. dadka muslimiinta layntooda waxaa ka dhalanayda aahaar ama raad xun oo qofka shaqsiyadiisa adduun iyo aakhira ku gaar ah iyo mid guud oo muslimiinta dhan dhib adduunka uga soo laabanaya. nabigeenna suban sallallahu calayhi wasallam xadiis laga wariyey imaamu muslim saxiixiisa ku soo saaray. nabigeenna suban sallallahu calayhi wasallam saddex arrimood uu habeen ilaahay ka bariyey. waxaa ka mid ahaa allaa yusallida calayhim caduwan min gayrihim yastabiixu baydatahum. ilaahi weynaa waxaan ka baryuura nabigu sallallahu calayhi wasallam in aan ilaahay ummadda muslimkaa ku sallidin cadow aan muslim ahayn oo gaalo ah oo markaas bannaysta ummaddu waxay waardiyeysanayeen ee diinkoodii, naftoodii, maalkoodii iyo sharaftoodii wixii ummaddu ay waardiyeysanaysay in aan ilaahay ku sallidin cadow bannaysta. nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam rabbulcaalamiin waa iga aqbalo, wuxuu yidhi ma ku sallidayo cadow oo bannaysta baydadooda, walow hadduu raba cadowgaasu ha iskaga yimaado jihooyinka dhulka dhammaan. ma dhici karto ummad muslim ah midaysan meel ku sugan cadow meel kale ka yimid inuu ayaga dhan cirib gooyo. laakiin wuxuu ku xiray shardi, waxay tahay in aan ayagu islayn xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacdan wayasbii bacduhum bacdan. arrintaas qaayo wuxuu uga dhigay waa inaan gabalkood gabalka kale halaagin oo dilin, gabalkood gabalka kale uusan qafaalan. hadday dhacdo in ayaga muslimiinta ah ay islaayaan oo dad muslim ah ay muslimiintii kale laayaan ama ay qafaashaan, waxaa imaanaya in ilaahay ku sallido cadow kale oo meel kale ka yimid oo baabi'iya wixii ay ummaddu waardiyeysanaysay oo diin ah oo naf ah oo maal ah oo sharaf ahna bannaysta. idan waa in uu ku xisaabtamaa, maadaama ilaahayna amray inaan is-xisaabinno intuusanna xisaabin. qof kasta oo muslim ah waa inuu ku xisaabtamaa laynta dadka muslimka ah waxa ka dhalanaya. waxaad ogaataa qofkaaga muslimkaa ee waxaan sameeyey ama ku fakeraya maxaa ka dhalanaya. waxaa ka dhalanaya shantii aayadda allah ku sheegay aday ku gaarta oo ilaah inuu jahannamo ku geliyo oo aad ku waarto oo cara alle kugu dhacdo, ilaahayna naxariista kaa durjiyo cadaab weyna kuu diyaarsado. waxaa kuu gaar ah sayi-ada qofku marka uu sameeyo waxaa shu'migeeda ka mid ah sayi-adaasu inay u sabab noqoto inuu dembi kale ku dhaco. qofku markuu dhiig muslim ku dhaco ee koowaad berri wuxuu ku dhacaa kii mid ka xun hadduusan toobad keenin. marka adduunka ka fogaansho alleh iyo in ay kula fududaato macaasida oo ilaa marka dambe aad samaydo wax aan la suuray karin qof ilaah rumaysan inuu sameeyo, taasaad adduunka ku gaaraysaa. aakhirana waa midda ay ka dhalanaydo shanta aayaddu sheegtay. waxaa kaleeto oo xadiiska nabigu noogu sheegay sallallahu calayhi wasallam, nabiga oo aan iska hadlayn ee wuxuu ku hadlayaa waxyi ay yihiin mar hadday dhacdo
مسلمين تإن ضد كميته مسلم كي كلا بابئيان وحا كدش الرات أو أمة مسلم كاكودعا أمة أعداء كوء أو أمة دين كود على كوء أو نفتو على كوء أو الدولة نمدو على كوء أو شريطان كود على كوء إن يكسو آدم أو السبب كدكتان أو أي دين تود بابئيان أو مال كود بابئيان أو نفتو بابئيان أو إردو بابئيان waxay raadkaas oo ka dhashay nabiga sallallahu alayhi wasallam isbaabiinta hadaba walaalle marka ay timaado taas ee ummadan acdaa kala duwan ee danale ay dhinacyada ka soo galaan adigana aad sabab u tahay nabi maxamedna uu yiri sallallahu alayhi wasallam wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah qofka dariiqahum bilaaba dariiqadaas inta uga dayata iyo waxa ka dhasha waa isaga dushiisa ilaa qiyaamo laga gaarayo dhammaan waxa acdaadu ay ku sameeydo ummadda in dushaada ay tahay waa inaad ku xisaabtanta oo ay amalkaagi ka dhalatay bal suurayso ilaahay wajigiisa adoo taagan oo aan koox kula socon oo aan qabiil kula socon ee lagu soo maxkamadeeyay boqol qof ee muslimiin ee saaka salaadii subax tukatay ee socota ee meeyday adigu aad dishay bal suurayso adoo qaawan oo cagacado wajiga alle taagan oo lagu soo maxkamadeeyay 150 500 400 oo dhaawac ah oo ilaahay wajigiisa la rabbiyo weydii bal wuxuu ugu dilay ama aan ka haystay bal suurayso marka dad dan leedahay oo qof dan le aad tahay oo rabbi dan ka leedahay oo doorayda adduunka alle inuu ku gargaaro ama aakhira uu ku gargaaro waa loo gargaaraa masaakiinta lama laayo nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigi jiray raadiya ducafada fa inna ma tunsaruna wa turzaquna biducafaikum wax kale ilaahay kuma gargaaro laynu kuma risaaqo waxa kaliyo laynu kugu gargaaraa oo laynu ku risaaqa dadka ducafada ah in la gacan qabto in la quudiyo saasa lagu gargaaraa dan maleedahay izza marabta u gargaar muslimiinta naftooda ilaali maalkooda ilaali sharaftooda ilaali kooda baahan quudi hadilin ha argagixin hana dilin subhanallah miyadan ilaahay dan kala hayn soo qabri iyo qiyaama marumaysnid bal waxaad ku xisaabtantaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hadiiski bukhari iyo qeyrkiis ee markuu mucaad dirayay wattaqi da'wata al-madlum fa innahu laysa baynaha wa bayna la hijab wuxuu ku yiri qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali maxaa yeelay qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iyo alle waxba uma dhaxeeyaan ila wuxuu leeyahay la'ansuranaka walaw ba'da hin waan ku gargaaraya waqti kadib baan noqotay waxaad suuraysataa bal boqolaal masaakiin ah ee agoon ah ee qofkii u shaqaynayay saaka ama asagoo shaxaad doona ama wax kale oo la mid ah nolol ka raadinayay wax hantiyo raasumaal aan lahayn saaka ay waayeen caawa agoontaas markaad adigu hurdaydo 9 saac ee rabbi leeyahay man yad'uni fa astajiba lah man yastaghfiruni fa aghfir lah من يدعوني فاستجيب له من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له مركو ربنا يهي الضوامضة صوتان أيريهن إلهي وحنا لكو قلي من نقاني نقاقبو محاد سويدا لما انتو أبو وقورين إيسا أيقنا انت إلهي السجودان أيريهن إله وحنا الكدر من نقان intaas aqoon isku soo hartaanahay ilaahu nooga gargaar maxaad malaysanayda hooyadii caruurkeeda wax ku bartay sheeh ay gado iyo aana ay wareejiday ee dugsare ka saartay jaamacad u dhiganayay ee hilbihiis loo keenay naftu qaarka hore uga jirto intuu nool yahay ulay saaran ah maalintay sugayda ayada inuu wax u taro maalintaas hooyadaas gacmaha taagto ee ay leedahay allow ii gargaar maxaad ilaahay agtiisa ka sugayda adduunka ma waadan dan kala hayn aakhira ma waadan dan kala hayn rabbi aan ka baqno oo dadka muslimiinta qofka qabri iyo qiyaamo rumaysano war dadka dhiigooda badbaadi oo naftooda badbaadi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un
waxaan kelimadayda ku qatimayaa laba kelimo dhammaan dadka muslimiinta ah Soomaaliyeed xeelad iyo xoog oo dhibka la iskaga rafciyo waa naga dhamaaday waa inaan ilaahay u tadarrucno oo qof walba sujuud ilaahay ku bariyo ilaahay inuu naga rafciyo cadaabka waa cadaab waxaanu yahay ilaahana amraha le ud'uuni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين إلهي إبريو ليه بلن كان كما بحوان إنك أقبله ليه مركا إلهي وإن ست ضرع له قفل بأسره كالجيسة خاصة أدنك يأقنك بحديثة إيا وقتك سقط بحي السجود إلهي أن غط ضرعنه إلهي إنه عذاب كان نقاضه إيا عليس كان نصارى طلب كاسقف والبا وإنه كالجيس إلهي أشيرته سي إلهي عليس كان نقاضه بلن ويه إلهي بلن كان الله كما بحوه taas waa kelimada koobaad waa inaan ogaano inaan faraj kala jirin